Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay oo dhawaan Al-shabaab kala wareegay deegaanada Wabxa ee gobolka Galgaduud ayaa saaka halkaasi ka wada howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan. Ciidamada oo isku fidiya xaafadaha iyo daafaha deegaanka Wabxa ayaa wada baaritaanno la xiriira soo saarista miinooyin dhowr ah ee Al-shabaab ku aaseen ka hor intaysan ka bixin deegaanka. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa sheegay inay ka go'an tahay in ay deegaanada kale ee hoostaga degmada Ceelbuur ka saaraan dagaalamayaasha Al-shabaab oo muddo ka badan 10 sano halkaasi maamulayay. Howlgallada oo toddobaadkan ka bilowday gobolka Galgaduud ayaa waxaa horkacaya Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka, waxa uuna warbaahinta u sheegay in dagaaladii ay la galeen Al-shabaab ay xubno badan uga dileen, balse weli ujeedkeedu uu yahay ka xureynta deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka gobolka Galgaduud. Waxa uu sheegay inaysan soo laaban doonin ayaga oonan xureynin dhulka iyo sidoo kale dadkooda oo xur ah. Xildhibaanka ayaa sheegay isla markaana goob fagaara xilli uu ka hadlayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka kula dardaarmay in aanan la soo laaban, isla markaana ay mudan tahay in guul ama geeri la keena. Waxaa aad u wanaag badan ayuu yiri intii aan wada laaban lahayn in ay qurux badan tahay annaga oo geeriyoona laakiin dhulkeena dadkooda xor uga dhigna inaan laabano. Xildhibaanka oo hadalkiisa sii watay Xildhibaan Jacfar ahna horkacaha dagaalka ee muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka. Ciidamada waxaa dhiirigelin u ayuu yiri in aan anagu cirifka ciidda hore ee dagaalkan ku jirno. Xildhibaanada kale ee deegaanadooda weli ay shabaab ku haystaan ayuu yiri inay ka soo baxaan isla markaana ciidanka ay u noqdaan horjoogo iyo dhiirigelin ayaa mudan ayuu yiri si guud ahaan iyo gebi ahaanba gobolada dalkeena Soomaaliya looga xoreeyo ayuu yiri dagaalamayaasha Al-shabaab oo dhowr iyo 10 sano dhibaato ku hayeen dadka Soomaaliyeed. Maanta waxa uu yiri waa maalintii ay mudneed in loo sara kaco loona istaago guud ahaan gobolada. Nin walba gobolka uu ka soo jeedo ayaa mudan ayuu yiri inuu jiidda hore ee ciidanka kala safto si ay ciidanku u dareemaan in dagaalku yahay mid ah oo wadajir ah, shacabkuna ay ka qayb qaataan ayuu yiri, isla markaana guud ahaan dalka laga wada xoreeyo dagaalamayaasha Al-shabaab. Al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe lagula dagaalamayay deegaano iyo degmooyin dhowr ah, inkastoo dhowr degmo iyo deegaano laga saaray gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe. Markaana Galmudug iyo Galgaduud ayaa markaana dagaalka kale ka socda maadaama deegaano iyo degmooyin dhowr ah shabaabku weli ay ku dagaalamayaan, qaybo ka midana weli ay ku xoogan yihiin. Inkastoo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dagaalkooda uu noqday mid laba jibaaran oo muddooyinkii dambe goobaha iyo sidoo kale degmooyin iyo deegaano ay kala wareegayeen dagaalamayaasha Al-shabaab.